الحمد لله سنة لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال وحرب دتك برنامجك دعوانا راديو بورمي عن صومالي كنديان تي في ولا ليال وحرب دتك صوماليات مانتا من نمدي يدلكي عن لهين إن أدمودو إن أنا وح معناه بسمينين وح أدونك كدعية walaalayaal waxaan rabaa inaan idiin sheego maalin dhaweyd Soomaaliya maamulka Somaliland barbara waxa yimiday laba dal waa dalka Imaaraadka iyo dalka Ethiopia labada dal waxay ku kala saxeexanayeen heshiis bay ku kala saxeexanayeen magaalada Berbera heshiiska waxa lagu kala saxeexaya waa dalka Soomaaliya dhexdiisa weey waxa wax saxeexaya waa laba dal oo aan Soomaali ahayn maamulka Somaliland qof ka socda oo heshiiska wax ka saxeexay ma jirin maamulka dawladda federaalka Soomaaliya qof ka saxeexayana ma joogin waxaan rabaa markaa dadka barnaamijka daawanaya radio Boorame Somali Canadian TV goorma ayay Soomaali noqotay dalkeegii in iyagoo arkaya aanay waxba ka saxeexanin aawe international loogi aawe markaa way hadii jidad loo sameeynayo oo la rabo maamulka Soomaaliya wax loo sameeyo Ethiopia sameeynayso ama Dubai miyaanay ahayn Somaliland inay meesha fadhiisato ay saxeexdo miyaanay ahayn dawladda federaalka Soomaaliya inay goobjoog ka ahaato arintaas waxa weeyaan arintii aad iyo aad dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in arintaas waxa ay sameeyeen dawladda Ethiopia iyo Dubai ay tahay wax sharciga ka baxsan sababtuna ay tahay iyaga oo raba inay maamul kamida Soomaaliya wax u sameeyaan aanu maamulkiina waxba ka saxeexin laakiin laba dalo aan dalkii ahayn wax ku saxeexdaan waxaan rabnaa aawi dawladda federaalka Soomaaliya where is the international loogi aawi waxaan rabaa arinta kale la yaab kale walaalayaal waxa jirta iyada bari dhaweyd waxa yimiday qayb kamida dawladda federaalka dawladda Djibouti waxaad ogtihiin Ismaaciil Cumar Geelle muddo fara badan ayuu dawladda Djibouti haystaa taariikhda Djiboutina magaca waxa laga bixiyay magaalada markii ay jirtay Seylac waxa bixiyay magaca Djibouti Xaaji Diide oday leeyahay oo ree awdal ayaa bixiyay taariikhda Djibouti uma baahna inaan halkan dadka uga sharxay waxaan rabaa arinta aw madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle khalad ku leeyahay waxa weey Soomaalidu inay ogaadaan dad badan oo Soomaaliyeed waxay u arkaan Ismaaciil Cumar Geelle waliba dadka koonfurta jooga maslaxadda Soomaali inuu ka shaqeeyo walaalayaal kama shaqeeyo maslaxadda Soomaaliyeed cid walbana waxay ogtahay oo aynu ognahay in uu yahay shirkii lagu qaban lahaa maamulka Somaliland intii cusbaa oo waxa Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal loo ogolaaday in uu isagu Soomaali mideeyo isku keeno ninkii u tagay weeyay jaamacadda Carabta ee la yiri dawlad maaha nabadgelyana maaha ee bedelay ee xamar lagu qabtay ee Djibouti lagu qabtay marka nin daneeya midnimadu ma Soomaaliyeed ma waa nin wax walba ay ugu horeyso dantiisu waxa kale oo la yaab leh dalka Djibouti walaalayaal waa dhul kulul weey dadku shaqo la'aanta iyo noloshu aad bay u liidataa iminka waxyaalaha la yaab kale waxa kamid ah walaalayaal inaan idin sheego maalin dhaw telefoon baa lagu la hadlay dadkii waxa ku dhacay kaliyaha loo sifeeyay qaar badan dialysis dadkaasi cudurro fara badan baa ku dhacay baahi iyo stress iyo dhibaato uu ku hayo maamulka uu madaxda ka yahay Ismaaciil Cumar Geelle isagoo aan danaynayn mid adeerkiya iyo mid aan abtigiya dhibaatooyin fara badan u geystay waxa rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego in ay tahay Djibouti waxay sameysay idna sida ay Dubai iyo Ethiopia sameeyeen maalin dhaweyd heshiis bay ku wada galeen maamulka Somaliland iyo Djibouti goormay ogolaatay dawladda federaalku in Seylac heshiis lagu kala qaato maamul Soomaaliya ka Somaliland iyo dawladda Djibouti sidee ay marka arinta uga aamusay dawladda federaalku Soomaalidu waxaan leeyahay dhamaan joogta walaalayaal midnimadu waa shay qaaliya in dalka la ilaaliyo in international looga dadka loo sharxo oo la tuso waxyaalaha ay ku gafayaan dhamaan dadka barnaamijka radio Boorame Somali Canadian TV daawanaya waa anigo Xamed Cali Cilmiya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.